السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهنا لندن بي بي سي. أيها السادة والسيدات، أهلا بكم إلى موجز الأنباء من إذاعة لندن، يقرأها عمر إنشار. تفيد الأنباء الواردة من العاصمة الصومالية مقديشو نجاح الصومال في إرسال قمر صناعي متطور إلى كوكب المريخ، وتهدف الصومال إلى استكشاف المريخ والبحث عن أي أثر لوجود حياة في هذا الكوكب الأحمر. وتعد الصومال من أكثر دول العالم اهتماما في البحث عن الحياة في الفضاء السحيق. markaan kasoo tagno kaftankaas yar muujinayo aniga ka shakhsi ahaan sidaan u jeclaa codadka ragga BBC-da ka shaqeeya haddii ay noqdaan Soomaali ama haddii ay noqdaan BBC Carabi kadib 84 sano waxaa la xiray oo meesha laga saaray BBC Carabi iyo telefishinka BBC Soomaali. runtii BBC-da Carabiga yani waxaa lagu tilmaami karaa ama aan dhihi karnaa waa laanta ugu saameynta badan ama laanta dadka ugu badan ay dhageystaan. sidoo kale BBC-da waxay xirtay joojisayna tobaneeyo laamood oo kala duwan. mustaqbalka xitaa dhow ama tallaabada xigto yaa og sidoo kale BBC Soomaali ka BBC ahaan idaacadda in ay joojin doonaan in yani la xiri doono. marka koobaad waxaan kula wadaagi doonaa sidoo kale sababaha BBC-da arrinkan maxaa ku kalifay maxay arrinkan u samaynaysaa. laakiin waxa BBC-da ka dhigay BBC ama aan dhaho yani dadka ilaa heer si ay ugu xiran yihiin dhinaca xusuusta dhinaca yani waxaad moodaa BBC-da marka mesela raadi markaad soo xasuusato inta badan ma ahan micnaha warka ay BBC-da sheegayso ka BBC ahaan ma ahan waa ragga warka akhrin jiray يعني codadkooda waliba hadda markaad barbar dhigto tusaale ahaan yani wariyaasha hadda maanta ama han noqdaan kuwa idaacada ka shaqeeya ama xitaa kuwa telefishinada ka shaqeeya raggii hore BBC-da yani waxaad moodaa in ay caalam kale ku noolaayeen. waxaan ula jeednaa dhinaca codka qiimaha yani ixtiraamka loo hayo xitaa runtii markaad micnaha cod raadiya markaad aragto ama cod macaan waxaad un soo xasuusan BBC-da yani hadda aan dhahno tusaalaan 5 sano u dambeeyay BBC-da yani cid dhageysatana ma lahan filayaa xitaa dhinaca tayada iyo ragga wax akhriyo kale yani sida hore ma ahan qiimaheeda dhulku gala ma filaya xataa BBC Soomaali inay sii dheeraan doonto sida BBC Carabi ayaa la xiri doonaa. waxyaabaha aniga BBC-da yani ijeclaysiiyey ka jacayl ahaan maahan waa raggaa sidaan sheegay codka akhriyo. aniga maalinkan bilaabay inaan idaacad dhegaysto 15 sano ama 14 sano wixii iigu muhiimsanaa micnaha warka waxaa laga yaabaa markaad yar tahay inaadan caalamka waxa ka socda aad u fahmaynin oo xilliyada qaar markaad aragto aabbaha iyo rag dhageysanayo markay qoslaan hadas ka qosasho adoon ogeyn waxaad ku qoslayso. waxay ahayd yani codkan dhadhamin jira micnaha codkoodaan jeclaa. aadam nuux dhuule hadduu dhageysanayo ama uu yaqaano qof aadam nuux dhuule la yaqaano yani hadduu muuqaalkan dhageysanayo ama codkayga hadda maqlay salaan iga gaarsiiye waxyaabahan ugu jeclaa waxaa ka mid ah marka uu aadam nuux dhuule warka akhrinayo yaa salaam yaa akhi ninkaas xaguu ka imaada. si haddaba dhegaystayaal aynu u fahamno xaaladda Soomaalidaha qarnigan dhamaanaya ee 20aad sida ugu bilaabmay waxaanu u baahanaynaa inaynu ka soo bilowno qaybtii ugu dambeysay ee qarnigii ka horreeyay oo hakii 19aad. haddaba sanadku markuu ahaa 1859 ayaa Faransiiska qunsul u fadhiyay magaalada Cadan uu ogolaansho uga helay cafarta magaalada Obakh in Faransiisku uu yimaado. 3 sano kadibna Faransiisku waxa uu canfarta uu ka iibsaday Obakh kadibna calankii Faransiiska ayaa halkaasi laga taagay. waxaan jeclaan jiray markuu aw ka soo gudbinayo inuu dhaho warka waxaan noo akhrin doono aadam nuux dhuule ninkaas codkiisa ma filayna arkay yani nin Soomaali codkiisa sidaas u macaan yahay. sidoo kale awka kale Cabdiraxmaan Koronto asagana ma sha Allah aad ayuu cod qurxan yahay. Yuusuf Garaad xitaa codkiisa uu fiicnaa. حتى عبد السلام هريري إنك صاد التلفزيون كي إذا عدك كعضة هنا كلا دوانيين لكن ردن جوني هو لي عد كيسة معناها قاب صيغة جوني هو كصعدان سيدا زرتد يعني واحد BBC دا ضدك كحصص أهان كحراية وعضتك رجاس. حتى BBC عربي أنا BBC عربي أنت نجيسته يمدا Soomaali أنت نجيسته وحاول إيه كرا BBC عربي أنت نجيسته أيها بدن حليات قار حتى هذا أنا نور أهان ودجيسانين أيان صدق كل ودجيسته رجع ورك آخرنا يعد كذا قروح ديسة يعني هذا تصالحان muuqaalkan yar daawan ku soo noqon doona mid ka mid ah wariyaasha ugu caansan BBC lagu magacaabo Xusaam Shiblaaq. ya salaam asagana markuu warka akhrinayo wax yar codkiisa yani qof muuqaal uga duubay ka mobile ku duubay dhowr sano ka hor bay ahayd uga duubay isagoo BBC-da stuudiyaha BBC Carabi war akhrinayo laakiin codkan aad ka quruxda badan dibdama uma maqli doona. السادسة بتوقيت جرينتش. أيها السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله. نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار.
الأنباء الواردة من لبنان تفيد بجرح 3 جنود فرنسيين من عناصر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في انفجار بمدينة صيدا. بعثة تابعة للأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ليبيا تقول إن الخدمات الصحية في طرابلس تتعرض لضغوط متزايدة في ظل تواصل غارات الناتو. haddaanu imaano mawduuca intiisa kale tallaabadan maxay b b c da u qaaday maxay u xirtay laamahan kala duwan yacni aan dhahna laantii ugu caansaneed tusaale ahaan b b c carabi maxay u xirtay sidoo kale telefishinka b b c soomaali maxaa loo xiray marka koobaad laba arrimood awgeed ayay b b c da arrinkan u samaysay haddaan soo qaadana midda ugu horreysa oo ah caalamku inuu isbedelay yacni caalamku sidiisa hore ma ahan maanta yaa dhegaysa tusaale ahaan b b c yani maanta yaa waa kay qofka hadda galabta isu diyaariyo markii laga reebo qof مثلا دور بادية جوجو آن إنترنت هيسنين مركي لغا ريبو واكي قفك مانتا بي بي سي دغيسنا يو فرايا ودف يا نادر مانتا قف بي بي سي فرايا dadku waxay joogaan internetkay wada joogaan sidaas darteed b b c du waxay leedahay hadda tusaale ahaan idaacadda b b c carabi way joojiyeen laakiin dhinaca telefishinka b b c carabi ma ayna joojinin ama dhinaca internetka ayay xooga saari doonaan haddaanan qaldanayn yani xitaa tabintaas ka telefishin ahaane inay joojin doonaan ayaan filayaa arrinku uu noqon doono keliya wax internetka lagu soo gudbiyo laamahaas kala duwan ee b b c da inta badan la joojiyey waxay isu bedeli doonaan wax internetka keliya lagu soo gudbiyo sababtoo ah yani dhinaca maadi ahaan markii wax internetka lagu soo gudbinayo muuqaal hadda la diyaariyo ama podcast ama la habeeyo way ka sahlan tahay ama way ka dhinaca maadiga dabcan way ka raqiisan tahay markii telefishin si satellite lagu baahinayo ama idaacad yani sidoo kale saas loo baahinayo sidaas darteed b b c du waxay aragtay caalamkii hore ee dad b b c dhegaysanayo meel fadhiyo kale yani inayna jirin yani hadda anaga ka soomaali ahaan b b c da mar bay ahayd isha keliya aan dhaho yani la dhegaysto b b c da mar koobaad صحيح idaacad ingiriis leeyahay laakiin noocan ma xumayn yani b b c da ilaa heer waxaa lagu tilmaami karay idaacad dhexdhexaad noocan ma jirto waxaad ogaataa markaad warbaahin dhegaysanaysa noocay ahaataba inaad ku socoto mabda ah in aysan jirin yani hay-ad warbaahin oo aanan ujeed lahayn yani haddaad b b c da ka sugayso in sidaas iyo sidaas may u hadasho يعني waxay kula noqon wax yani ama aad ku tilmaamayso been bay sheegtaa ama kana ma ujeedo laakiin haddaad ku socoto mabda ah idaacad yani dowladdaas ingiriiska leedahay haddaba haddii aan wax wanaagsan ka aragna maalan war fiican ay sheegto kale yaa salaam laakiin aadan ka sugaynin inay qadiyadaada u gargaarto sababta hoo mustaxiil yani xitaa fiir hadda aljaziira kale aljaziira sidoo kale yani xukuumadda qatar ayaa iska leh inkastoo micnaha dhinaca yani saxaafadda caalamka yani aan dhahna carabta wadamada carabta lagu tilmaami karo midda ugu micnaha ugu xorsan alra'yu walra'yu alaakhir sidaas darteed ayadoo saas ay tahay haddana yani xukuumadda qatar ay matalaysaa sidaas darteed warbaahin kasta waxay leedahay ujeed ay ku socoto markaan soo sheegnay b b c du inay fahamtay caalamku inuu isbedelay dadku internetka ay wada joogaan midda kale waa mashaakil dhinaca maalka b b c da waxaa soo wajahay yani dhaqaale xumo sababtoo ah haddaan maalan arrin b b c iyo aljaziira kale tusaale ahaan aljaziira xukuumadda si toos u fangarayso kaanama inay wasaarad tahay oo kale waana waaxdaas micnaha waana shabakadaas weyne ayada xitaa naftirkeeda balaayinta lacagta ay samayso laakiin b b c da inta badan waxay ku tiirsanayd tabarucaad ama aan dhahno ama canshuur la bixiyey ama qoonda wax dad laga qaadqaaday wax saasay ku dhisnayd lacag yani yaroo la siiyo xukuumadda u qoondaysay oo ka imaanaysa dadkaas ayay ahayd miisaaniyaddeeda sidaas darteed aad ayay u yar tahay yani hadda waxaa ugu dambeeyay b b c carabi wariyaha ugu caansanaa ayay hadda aljaziira ka soo qaatay yarkan suuriga lagu magacaabo axmed faakhuuri oo b b c da ah ragga ugu caansan aljaziira kusoo biiray yani dhowr isbuuc ka hor marka dhinacaas mashaakilka maaliga ah b b c da way soo wajahday sidoo kale b b c da waxay sheegtay ama waxyaabaha ay sababta ay tallaabadan u qaaday waxaa ka mid ah waxay rabaan in ay u baaqato micnaha waxay dhaheen miisaaniyaddanada $30 milyan laakiin arrin kalaa jira sidoo kale sanadkan soo socda bilowgiisa b b c da iyo kanaalka koobaad ayaan filayaa ingiriiska ayaa la isku dari doonaa kadibna waxaa la bilaabi doonaa idaacad cusub xitaa waxay u guurtay manchester yani hadda london b b c london waxay u guuri doontaa dhisma cusub looga dhisay manchester sidoo kale micnaha waxyaabaha b b c da ay talabadan 382 shaqo ayaa meesha laga saaray ma filay micnaha inay yihiin markaan aragna numberkan inuu yahay micnaha 382 qof bal shaqooyin waaxad dhan ayaa meesha laga saaray sidoo kale waxaa istaagi doona ama idaacadaha istaagay hadda talabadan hore ay ku istaagay wax ka mid ah waxaa ka mid ah b b c carabi